بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو channel كينا aynu alaaba kaga hadallo sayniska iyo caafimaadka iyo waxyaalaha aynu isleenahay dadka waa u faa'iido mowduucyada qaar aynu ka hadalnaa waa mowduucyo iska general sida kan maanta aynu ka hadli doono oo kale waa mowduuc kulay umada ama bini aadanka oo dhan taabanaya aynu doonaynaa in canaawintiisa waaweyn oo aynu ka hadallo haddaba haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato channelkan fadlan share garee subscribe gareena dadka kalena gaadsii adduunyadan aynu ku noolahay darafyadeeda iyo qaaradaheeda kala duwan waxa ka socda isbedelo ilaahi ah oo ilaahay gacanta ku hayo u sameynayana sida uu doonana uu maamulayo haddaba bini aadanku isbedelada dhacaya ee rabaaniga ah ayay sababeeyaan oo ay kolba sababo ay u sameeyaan ama sababahaasi ha jiraan qaar waaqici ah oo dhacaya oo la arki karo ama ha noqdaan qaar kale tusaale ahaan heerkulka iyo kuleylka isbedelaya iyo cimilada adduunka ee hadda aynu arkayno waxa ay u muuqataa mid la taaban karo isbedelada waxa kaloo ka mid ah dhalaalka ama milanka ay milmayaan barafyadii waaweyn ama buurihii barafyada ahaa ee darafyada kuwaas oo isku bedelaya qaar ama iyo soo fadhiya kaasi oo dhibaatooyinka bini aadanka iyo noolaha aan la qabsanin daadadka ama biyaha xoogan waxyaalaha sababa ee bini aadanku ay leeyihiin waa sabab waxa ka mid ah carbon dioxide kaasi oo inta badan warshadaha waaweyn laga sii daayo laguna sii daayo atmosphere-ka ama hawadan inagu giblan ee ilaahayna siiyey hawadaasi oo ay sheegayaan haddii lagu wado sidan inay heerkulkeedu sii ziyaadi doono mar ka dambeysa saynisyahaniintu waxay markaa awoodda saarayaan hadda inay ku qanciyaan dadka siyaasiyiinta ah in ay joojiyaan shirkadahan ama factorieskan ku shaqeynaya carbon dioxide ka sii daynaya haddaad u fiirsato waaqaca hadda aynu joogno waxaad arkaysaa kaymihii waaweynaa ee adduunka oo gubanaya iyadoo aan la garanaynin sabab rasmi ah oo ka dambeysa inkastoo dadka qaar ay ku doodayaan Africa oo kale inay siyaasadaysan tahay oo la doonayo Africa dhaqaalaheeda soo koraya hadda ee ku dhisan warshadaha ama saliida ama dhuxusha ku shaqeeya ee sii daaya carbon dioxide-ka in loo dan leeyahay oo la doonayo maadaama technology-gan casriga ah haysanin ee lagu soo saari karo energy-ga aan lahayn carbon dioxide-ka in iyaga loo dan leeyayo dhaqaalahooga lagu daciifinayo siday doontaba ahaatee isbedelada dhacaya ama kuleylka haato ama daadadka iyo dabaylaha iyo qabowga isbedelaya ha noqotee waa wax marmarka qaar la dareemi karo lana arki karo inay isbedelo jiraan meelaha qaar baa biyo noqonaya meelaha qaar baa waxay noqonayaan saxare waxaan rajaynayaa in haddii inaga roobku bato oo kale inaynu ka faa'iidaysano oo aynu xagga wanaagsan eegno waanad mahadsantihiin haddaba isbedelka cimilada ee hadda aad adigu u soo taagan tahay ama aad arkayso bal maxay kula tahay adiga ra'yi ahaan ka dhiibo fikirkaaga isbedeladan adduunka ka socda iyo waxa ay kula muuqato commentiga noogu reeb wixii aad u malaynayso haddaad cilmi u leedahayna noo sharax waad mahadsantihiin dhammaantiin dhegaysigiina iyo daawashadiinaba asalaamu calaykum waraxmatullah